waxaan jeclaystay inaan fursooyinkaas qaaliga ah walaalaha la wadaago oo aan xasuusiyo maalmaha adduunka ku soo mara maalmaha ugu qaalisan ayaa ku soo haya ilaahay baa ku dhaartay walfajri walayaalin cashir layaalin cashir tobankaa ilaahay uu ku dhaartay oo si gooniya uga doortay maalmaha kale iyo habeennada kale waxa weeyaan ahmiyad arrinkaas uu leeyahay wayna soo guuriyeen ahlucilmigu inay yihiin tobankaa maalmood oo bisha dilxija ugu horaysa ilaahay wuxuu leeyahay liyashhaduu manaafica lahum wayadkuru isma allah fii ayaamin macluumaat maalmo macluumaadoo la yaqaano ilaahay inay xusaan maalmahaas macluumaadka ah waa maalmahaas na soo haya nebiguna wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam maa min ayaamin alcamalu الصaalixu fiihinna axabu ila allah min haadihi alayaami alcashra ma jiraan ilaahay xaggiisa maalmo camal la sameeyo loogu jecel yahay loogu kalgacayl badan yahay maalmaha iyaga ah saxaabadu su'aal bay weyddiiyeen walaljihaadu fii sabiili illaah jihaadka ilaahay waddadiisa lagu jihaado miyuusan maalmahaan ka fadli badnayn markaasuu nebigu yidhi walaljihaadu fii sabiili illaah jihaadka oo ilaahay waddadiisa lagu jihaadana ma gaarayo ilaa hal qof marka laga soo reebo nin baxay oo naftiisa iyo maalkaba labadii qaaday oo jihaadka geeyey wax ka soo laabtay aysan jirin naftiisii iyo maalkiisii labaduba ku gacan galeen ninkaas fadliga ilaahay agtiisa u yaalla unbaa gaari kara maalmaha iyaga ah bal u fiirsada walaalayaal maalmahaas qaaliga ah yaa nooga baahi badan ka faa'iidaysiga maalmahaas iyaga ah walaalayaal nebigu wuxuu leeyahay calayhi الsalaatu wasalaam maa min ayaamin acdam cinda allah walaa axabu ilayhi min alcamali fiihin min haadihi alayaami alcashra maalmo ilaahay agtiisa ka weynan badan camal la sameeyo loogu jeceyl badan yahay ma jiro maalmaha faakiruu fiihinna min altahliili waaltaxmiidi waaltakbiir maalmahaa dhexdooda waxaad badisaan dikriga ilaahay taxmiidda alxamdu lilaah tahliisha laa ilaaha ila allah takbiirta allaahu akbar kelimaadkaas dikriga ilaahaya maalmahaa dhexdooda badiya maadaama maalmaha ilaahay agtiisa ugu weyn ay yihiin maalmahaa waxaa ku jira yowmu carafa waxaa ku jira yowmu naxr waxaa ka dambeeya oo maalinta 11aad ah yowmulqarn maalinta carafa nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam maa min yowmin akthar min an yuctiqa allaahu fiihi cabdan min annaar yowmu carafa maalin ilaahay agtiisa ay ka badan yihiin dadka naarta laga xoreeyaa ma jiro maalinta carafa cadaabka dadka laga xoreeyo maalin waxaa ugu badan maalinta carafo dadka ilaahay cadaabtiisa uu ka xoreeyo maalinkaasaa ugu badan oo waxa weeyaan maalinkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqigiisa ayuu u soo dhowaanayaa duluwan yaliiqu bijalaalihi wa cadamati suldaanihi dhowaasho ilaahay jalaalkiisa iyo cadamadiisa u qalma siduu yahayna annagu aanan aqoonin ayaa ilaahay u soo dhowaanayaa markaasuu ilaahay malaa'igtiisa ugu faanayaa oo leeyahay bal eega addoommadeeda daafaha dunida ay isaga kala yimaadeen ayaga oo weliba boor leh oo basaasan markhaati waxaad ka noqotaan in aan dembigoodiiba dhaafay hadday niyadda kaaga jirta in meeshaa carafaha taagan tahay sanadkan oo sanadkii hore aad ku xisaabtamaysay caqabadna ay jirto hadda niyadaadii wanaagsaneed ajirkeeda ayaa leedahay wax allaala waxaad rabta inaad ku xaajisidna sadaqee oo masaakiinta si weliba uga qayb qaado wakhtigan la joogo walaaluhu fatahaadaha ay saameeyeen ee shabeelooyinkii afgooya ugu horray yowmu naxr wuxuu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam ina acdamu alayaami cinda allah yowmu naxr uma yowmu alqarn maalmaha ilaahay agtiisa waxaa ugu weyn maalinta yowmu naxri ah waa maalinta 10aad oo maalinta ciidda ah oo xoolaha la qalayo oo adduunyada daafaheeda dhiigga la daadinayo maalinka ilaahay dartiisa loo daadinayo waa maalinta camalka xajka ugu ballaaran yahay oo ugu weyn yahay wey waxaa ku xiga maalinta ka dambaysa oo 11aad oo yowmulqarn la yidhaah
yowmul qar waxaa loogu magacaabay waa maalinta sugnaanta oo xujaydu ay sugnaanayaan kana tegi karin minawi walaalayaal maadaama maalmahaas qaaliga ay nagu soo socdaan waxaa loo baahan yahay inaan u diyaar garowno oo istighfaar iyo weliba aan ku qaabilno adkaar iyo camal wanaagsan oo maalmaha ayaga aan ka qiimaysano ka qabsano oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf aan ka helno ilaahay subxaanahu wa tacaala ha nagu daro kuwa fawaa'idda iyo khayraadka maalmaha iyaga ah lagu sheegay hela ilaahay ha nagu daro ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigeena ha dhaafo.